aniga bay inaan ku dhashay waxaan qiyaasay inaan dhashay 1940kii inaan dhashay ayaan qiyaasay sababtoo ah waa tii dagaalkii labaad wato xilligaas adduunka ka dhacay talyaani marka wuxuu ku jiray ciidamadii la jabiyey wuu ku jiray isaga iyo Japan iyo nimanka la yiraahdo maxay ahayd Germany sidaadoodas ahayd dhinacan kalena waxaa ahayd Ingiriis iyo Maraykan iyo gruubkaas ay ahayd Faransiis iyo gruubkaas ay ahayd marka hooyadii waxay ii sheegtay in marka waxaa soo galeen dawladii Ingiriiska soo galay Baydhabo marka dawladii Ingiriiska markuu soo galay Baydhabo waa la ogyahay 41kii soo galay Baydhabo Ingiriiska hooyadii waxay ii sheegtay marka inay dhabarka ugu waday waa laga qaxay magaalada Baydhabo waa laga qaxay dawladaha jirtooda marka miyuu u dhowdhowaay ayaa la tegey marka hooyadii waxay sheegtay dhabarka ugu waday marka daan xisaabo qiyaastii sanad jir ayaan ahay 40kii iyo 1kii marka 40kii ayaan qiyaasana maca dalik waa bay nin wax yaqiin oo wax qori kari u ahaa hadda dhaqan ila qoran dhaqan waaye waxbarashadaadii marka xageed ka bilowday ee kugu horeysay ee dugsi quraanka ama tacliinta kale odiga markii uu maxaa la yiraahdaa aabay dhintay aniga aabay waa soo gaaray haddaan 40kii dhashay aan iri asaga waa dhinta qiyaasaya 40kii saddexdii marka 5 sano meelaas marka wajigiisa haddii la soo bixiyo oo dal lagu soo dhaxdiro ma aqaano laakiin hadana sheekooyinkiisa kale waxay ku sheekaysan jirnay waa xusiista ajaa'ibka nolosheedahay way 5 jir markaad ahayd waa xusiisanay 6 jir markaad soo weynaatay wixii dhawey dhaxdaan waa lumaya waa sax waa lumaya marka saasa maxaa la yiraahdaa marka geeridii aabe kadib maxaa noloshaadu noqotay kulliba nin agoon ah noqotay xageed garab ka heshay yaasa garab ku noqday oo marka noloshaadii marka garabka ilaahay garab ka weyn ma jiro marka waxa weeye markii oo dugsi oo markaan 7 sano meelahaas jiray dugsi ayaa la geeyey sida dhaqanka sida caadiga Soomaalida ay ku dhaqanto nin macallin la dhihi jiray Macallin Xasan ayaa xaafadda aan deganoo buul jamaacad la dhihi jiray ayaa dugsigaas maxay oo ahay nimanka la yiraahdo xariin xariin waa nimanka ugu badan ee deegaankaas oo ay marka dugsigii anoo dhiganayo ayaa 50kii iyo 1kii Talyaani soo noqday oo de markii maaliya Allahna Ciise Abdullaahi Ciise iyo ulada tageen oo xisbiga Israa'iil oo hoggaam dawladda doonay markaas maxaa la yiraahdaa ayaa kontrikoodi kontrikoodi Talyaaniga soo noqday marka Talyaaniga kaligiis iska imaanin UN-ka soo diray marka waxaa la daba dhigay xitaa ama la garab dhigay aan iraahdo dawladda ilaaliyo Masar ay ka mid ahayd markii yani maxaa Talyaaniga iskuulada meel laga furay intii suurtagal ahayd marka iskuulkii markii la furay aniga iskuulkii ayaan aaday hooyaday iskuulkii geysay marka waxaan xusiistaa macallinkii oo quraanka noo dhigay hooyada ceeb la dhigi jiray ceeb dugsiga duminaysaa hadda wiilkanada iskool u wado kulligood raacay iskool arnaa dhahay dugsiga duminay wiilkan meesha joogo wiilkayga waa nin agoon ah waxaan jeclahay inuu maxaa la yiraahdaa wax barto oo ku noolaado oo daniis ku raacdo saasa dugsi maxaa la yiraahdaa 50kii labada ereyadeeda ayaa dugsi Baydhabo laga furay dugsigaas iskuulkaas saasoo ku galay marka noloshaadi waxa tahay nin Baydhabo ku dhashay oo reer Baydhabo saas way waqtiga marka caruurta markaad xusuusato noloshii waqtiga way adkayd gaar ahaan adiga oo haddana nin agoon ah marka dukaankii aabba furay ayaad la wareegteen oo ku noolaydeen miya adiga hooyo lama dhihi karo dukaanka waa yiilay mar dhaxdaan hadda oo laga joogo sanad 2 sano laga joogo aan gaday aniga hadda wax si kale uma gadinay oo dhaqaale aad ka heshay uma gadinay haddii anigana waaba sii socdaa ilmahan dhaleen ilmaha u diyaar ah inay Baydhabo dhulkaas degaan ma aha annaga waxaan ahayn 2 wiil aniga iyo wiil nin weynaa oo dhintay Maxamed Xuseen la dhihi jiray iyo weynaa iyo gabdho ayaan ahayn marka
ninkii weyne waa iska tegey marka eryadeeda ayuu 50 iyo 40 ku dhiman doonaa tii rabbi u imaan doontaa marka noloshayna markaas waxay ahayd nolol adigay ahayd aad u adigay ahayd oo ku saabsan marka beer in la tabaco iyo maxaa la yidhaahdaa howl noocaas oo kaleta ah wax la-aantana waxay ahayd eryada baydhabo wax ka muuqanayo infact hadan waxay kuu sheego waxaa waaye ninaa makhaayad geliyo waxoogaa yaro raashin u dalbanaya nin kaleeto saaxiibkiisa ama maxaa la yidhahdaa macruuf isaga ayaa soo geliyo saxan lama dalban kiisi alwada cunaya waa soomaalida ay ku fiicnayd waxyaalahaas ahayd marka nolosha aad u adkayd wixii maxaa la yidhahdaa dagaalkii marka u dhacay kanaal Suez oo wax aan u malaynay inay maxaa la yidhahdaa soo mari jireen maraakiibta waxyaalaha wixii waa istaageen xitaa waxaan u malaynay lacag ninkii haysto bayna waxaan xusiistaa aabbay karfantiisii meel laga gadaal waay sida la ii sheegay meel laga soo gado nin maxaa la yidhahdaa islaamiyadu karfan haystay karfantii laga soo qaaday marka nolosha waxay ahayd nolol aad iyo aad saas iyo reesiyaad geeloodii iyo xoolahoodii maxaa nololho oo ayaad ka heshay marka ayaad garab ka heshay adeerada marka waxaa waaye adeerada waxaa noolaay oo aniga markaan aqliyaystay aan noolaay geedi siyaad cabdi geedi iyo faarax geedi abood geedi siyaada noolaay marka markii la joogay 50 iyo 40 markii la joogay aniga waxaan dhamaynay iskuulkii hoosaan dhamaynay iskuul oo dugsi dhexe ah iska dhaaf dugsi sare iyo jaamacad iska dhaafay hal xamar ku yili meel kale oo iskuul dugsi dhexe iyo elementary maahan dugsi dhexe iyo meel kale oo ku tiili lama arkayo marka sanadkaas waxaan tegey imtixaankii aan galnay imtixaankii waxaa jira imtixaan admission la yidhahdo dalbashada la galayo marka imtixaankiina laga qaaday adigu waxbaa iska yeeli jira imtixaankaas laakiin markii laba ku noqonnay waa ku faa'iidnay marka waxaa meesha tiili markaas haddii xamar in la jooga anigu marka waa igu adkayd xamar inaan joogo maxaa yeelay xoolo oon haystay oo xamar ku joogayna ma jirin cid xitaa qaraabo oo waa la jilaa sida xirtaba xitaa waa la jilaaye ma joogin dad yani qaraabo oo aan garanayo at least aniga aan garanayo marka sanadkaas waa iga dhumay because xamar ma joogi karin school yearkii 54 59 ah 54 55 ah ilaa school year waa saas waa iga dhumay marka markii la joogo xilli ayaa waxay soo ninkiiba walaalkay ayaa dhintay miinta marka waxay soo gashay war meeshan waxa joogo waa gabdho iyo hooyo marka bal oodagii xoolihii odaga uu sheegi jirayna ka dardaarmayna oo geel ilaa 40 ah ka wardoon walaalkaana waa uun ha ku qancin waa dhintay bal arag dhulkii tago uu ku dhintay qabrigiisii waxyaalahaas aakhirtu kasoo maxaa la yidhahdaa soo hubso marka saasaa maxaa la yidhahdaa haddii la dhihi karo hooyo waxeed waa la soo xaday habartay ma ogoleen inaan soo baxo markay ninkii kalaa tegey 25 shilin oo meel dhigtay aan ka soo qaatay 5 ilaa xamara 5 shilin baabuurka lagu raacay ilaa xamara 5 shilin maxaa la yidhahdaa baabuurka 20 ay soo hartay xamar haddaan midba dhalinyaradii reer baydhabo ahay oo isnaqayni oo aan qabiil aanan lahayn oo niman kasta alaha joogaan oon u badnaa inay maqaan macallimiin la dhihi jiray suplenti la dhihi jiray suplenti waa kaaliin macallim oo qaadanayaan 194 shilin ay qaadi jiray marka taasaba lacag badan ahayd marka maqaayada la jooga iyaga maxaan faa'iiday xamar safarkaas maxaan ka faa'iiday safarka horta sidiisba khayr uu leeyahay waa in la safro faa'iido badanaa ku jirto marka xamar markaan mid waxaan ogaaday horta awalan inaan heli karo iskuul jiif iyo cunno ku siinayo waxna laga baranayo ma ogeyn sanadkaas igama dhuwen haddaan ogaan lahay sanadkaas iga dhuw sanad taas horta ogaaday isla markiina meesha waxaa la dhisayba
dowladdii Soomaaliyeed oo Cabdullaahi Ciise prime ministerka uu ka noqonayo cali jimcaale uu ka noqonayo wasiirka arrimaha bulshada rag kaleeto nin Salaad Cabdi la dhihi jiray oo reer Kismaayo ahay wasiirka maaliyadda uu noqonaya islaan Timir Cugaash la yidhaahdo waa maqasheen u malaynaya oo xabiskay ku dhashay la yidhaahdo macna ma samaynayso in xuquuqda la inkiraa qabiilnimo in loo inkiraa ma samaynayso faa'iido badan ku jirta maaha wixii wanaaga qofkii lahay waa in la sheegaa marka yani maxaa la yidhahda nin reer Baydhabo waxaa xisbiga Israa'iil la dhihi jiray waxaa madax ka ahaa nin la jiray Maxamed Cabdinuur Juuje lagu naanaysi jiray wuxuu noqday marka dowladda Cabdullaahi Ciise waasna wuxuu ka noqday wasiir la dhihi jiray wasiirka oo maxaa la yidhahda general affairs oo shaqaalaha dowladda dhisida iyo waxaan leeyahay governance leeyahay waxyaalahaas maxaa la yidhahda staffka tababarkiisa waxyaalahaas shaqadaas waayey shaqaalina waa isku waayey wasaaradda social affairs aa dhihi jiray wasaaraddiisa minister affairs sociali caafimaadka waxbarashada shaqaalaha xanaanada xoolaha intaas oo kulligood ay wax shaqo u ka socotay ayuu maxaa isku hayay sidaa xamar ku tegey arrintii marka waxaad ii waday inaad raadiso bal wixii aabba ka tegey xoolihii dhaxalkiisa iyo ninkaas walaalkay ah inaan maxaa geediisa ubsado waa baxay lacagaan haysaa marka 20 shilin waa ma ogsoon marka meeshaan ka baxay waxaan tegey buulburte waxaan ka helay nin adeerkay ahayo dhintay oo Cabdulle Xasan Foodey habeenoo cusubay Siyaad Axmed Foodey marka saas oo nin adeer ahayo oo aad ugu dhoway ayaan ka helay magaalada buulburte aan ka helay marka waxaan yidhi saasaan u socdaa waa kuwada yani xoolo mahayo aniga waa ii jeeda reer beelan iska noqday waa kuwada waxaan kuu geynayaa adeerkay oo runta ahaa geediseedaan kuu geynaya geediseed wuxuu ku leeyahay baar weyn wuxuu ku leeyahay la yidhahdo miir qooley la yidhahdo oo halgan hoostiisa dhinacaas ah haddaan tegey horta intaan saas teginba isaguna aan khibrad ma lahayn nina iska ahaa ninkaan adeerka ahayn waxaan mulay nin diima aana qaadanin waxaana ka baxayna beliska buurta aboorey markii la marayo waa oon isu kay taagay waxaana joognaa maarso bisha ugu kulul waan joognaa waxaan teginay waxaan meesha degan aboorey eeridaas Ibraahim Ciise marka odaga adeerkay wuxuu yidhahdaa Ibraahim Ciise u tagaa waayo Ibraahim anigana wiilkaniga waa oon ley cidda Ibraahim Ciise saasaan ku dhaafnay kulligood waa oon ley markii dambe waxaan helnay guri waxaan tegnay cali madaxweyne cidda waayo waa la is warsanaa waa cali idigan waa cali oo biyaan rabna geedkaas fadhiista biiska dhal baraxana loo keenay naftame waa maalinkan dhihi tegey oona u dhimanaysaa oon oo qaaxado ilay qalshay aan u malaynay weli xitaa afqaleen haddii weli igu soo noqnoqday originkiisi meesha inuu ka yimid marka waa baxnay waa socnay waxaan u tagnay geedisiyeed markaan u tagnay waana loogay neefana loo qalay geed masage la yidhaahdo oo wax ka fara badan aa la keenay cusba male masagada saani maxaa la yidhahda maalinkaas oo naloo loogay aniga nasiib daro waa qaday wixii dhadhan ma laha iska soo bartiyaanya iyo dhandhanaan maxaa malaynaysaa markaasa maxaa la yidhahdaa adeerka geedisiyeed alla naxariista wuxuu yidhi cabdullaahi saas maa u timid haa waxaan kuu sheega uu yidhi afkaynuu ku hadlay wuxuu yidhi qurbac cusabasiyeed leeyahay geeda qurjubka ma siinin xaday male waay ma ogta waxaa jirta aaway xoolihii aabbay ka dhintay maxaa dhihi weyse waa la gaari doonaa marka saas markay ay dhacday hal aa joogtaa la yidhi oo cadho qabto oo laga fiican yahay oo waxba taraynin hashii nin maxaa la yidhahdaa ilma adeer aan faarix geedi la yidhahdo waxaa yidhi hashaan iyo mid kaleeto asagana maxaa la yidhahdaa
siyaad axmedkan ka soo dhaco hashi waa iga xadeen saalamiina la geeyey saalamiina la aaday haddaan soo kacay ma joogto faarax saas miyaha waa baxay waxaan tegey buulburtaan tegey magaaladii bar waan soo goostay oo yaan usoo goosanay adeerkay waana xishoonayaa oo waxaan leeyahay ma adeerkiis ayuu rid baruwada waa shilin yaa qaydisiyaad carabiga wax lagu qoraa yaa qaydisiyaad qaaf waa ixdir baruwada waa intaas kaalay waaye hadduu imaan waayo ilaala loo diraya marka fiiri siduu maxaa leedahay sharciga uu faagashan garaynay baruwadeeda iska soo qaatay shilinkan bixii jeebkan kusoo qaatay waa ku noqday sidoo kale lugaysa dara sidoo kale aan lugay waa ku noqday markaas waa ilbahaan ahay biyeygi waxay waa sida bari sideedaba waxaan socon ogda laba iska soconaya kaligeena aaday marka waana walwala waxaan leeyahay meeshii waxna laguma hayo adeerkan haddii ma celi kartid nin waxaa la yidhahdaa qaraabada ka mid ahaa oo nuur madax la dhihi jiray iyo cabdimadax wuxuu ahay ma aqaane ayii geedisiyaado anaga markhaati furayn ninkan xoolo ma haysaan laakiin hashi hal cadla qabtaad leedahay hashi ariga kuu joogo waxaad kasoo bixinaysaa hal ari u dhigmo ninkaan hawdka ku jid maro haye adeerkay wuxuu yidhi maandhow walaalkay macaana ku dhalee ha iga tegin waa ku xudumay meeshan iladagamtanaha ila deganaaw meeshan deganaaw ila deganaaw adeerkay walaalkay macaana ku dhalee adeero meeshan waa ugu qada cusbo ma laha baqaayad ma laha tugaan ma laha meeshan meel yanfacaysa ma ahane digeli laway waa iska noqonaya sidaas kusoo noqday waxoogaa ari ah jiilaalka la joogo ariga neefka ariga waxaa ka qaalisan maqaarkiisa ninkii qalan karo ilbahaasi waxaas raqiis qaado bilaash u qaado maqaarka ayaa ka qaalisan neefka ariga ah oo aad u dhaqan 10 shilin ma joogo 10 shilin ma joogo hadda shilin soomaaligana lacagu ah marka adiga saas ayaa xoolihii aabbahayna waa soo sabri ahay waxaa kaliyo jiray waxaa waaye ninkaas dhinto walaalkii ay maruu tegey waxbuu ka soo watay hooyadayna mar dambe ee hal keliya ay ka soo wadatay iyadoo weliba la ficla oo laleeyahay habartan dhacdaynayso oo cabdiisu meeshay ka soo doontay laakiin meeshaas waxaa ku caddaanaysa nolosha miyiga iyo ehelka miyiga jira in aysan u naxariisan agoonta walaalahood ka tagin marka agoontii xoolihiyan agoonba ma yaqaanaanba horta iyo waxa ay xaq u leedahay maba la yaqaanba wuxuu yidhi maxaa la yidhahdaa intaasoo halaad dhurwaayaa dilay libax waa dilmaan intaasoo halaad waxaa la geeyey qabuuraha reer foodey qabuuraha reer foodey yaa u yeedin awtrasiinka siyaadiisii xoolaha annakaa lahayne waxaa la geeyey qabuuraha reer foodey waa lagu ducaystay intaasna waxaa waaye maxaa la yidhaha waxaa cunay dhurwaayaa cunay in labada saas oo kaleeta ah faaraxan oo hashaan iga ilma adeerka aan ku guursaday isla markaas gabar xasan faarax in ilaahay haddaa aragto quruxdooda markaas ugu guursaday xoolahayga waay xoolahayga waay marka saasa xaaladaas aan kusoo laakiin cala kulli xaal ilbaxnimo weyn waa baxay haddana beledweynan tegey waa iska gudbaxay rarka soo arag beledweynan tegey oo beledweyne waxaan ugu tegey nin adeerkay ahaa marka askari ahaa meesha ku kulanay oo la dhihi tahliil mugin axmed siraad gabar la yidhaahda iyo wiiluu dhalay badan waa la yaqaanaa marka aan ku kulan marka dadkii cala kulli xaal waa soo arkay dalkii iyo dadkaygii iyo aniga aan u dhashay iyo dalkoodii iyo waa soo arkay cabdulaahi cosoble siyaad oo muddo dheer ka mid ahaa siyaasiyiinta dalka soomaaliya ka hor inta aanu siyaasadda ku biirinna waxa uu ahaa shaqaale dowladeed.